maalba toban jahal bay iga hor yimaada oo igoosta qayb ka mida jirkayga. qalbiga Soomaalida ayuu dhaqaajiyey, wuxuu daaha ka fayday takoorka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee la haybsooco oo salka ku haysa garasho la'aan, cunsuriyad iyo ilbaxnimo la'aan. waxaynu sidoo kale warbixintan ku soo qaadan doonaa qisadii ka dhacday dalka Ingiriiska, wiilkii Soomaaliga ahaa ee gabadha caddaanka ah ay qoyskeeda uga soo tagtay, ee isagu gabadhii uu dhalay doonay inuu u diido wiil Soomaaliya, iyo wixii kala qabsaday xaaskiisa isagoo madow oo muslim ah ka raacday qoyskeeda. ku soo dhawaada barnaamijka. aynu ku horeynay waxaa maanta iyo xalayba qaar ka mid ah warbaahinta iyo baraha bulshada si weyn loogu falanqeeyay hadallo uu jeediyey Maxamed Cali Weji oo ka mid ah saxafiyiintii hore ee dalka, isla markaana uu ka sheegay barnaamij ka baxay telefishinka Universal dabayaaqadii sanadkii 2018 iyadoo uu xilligaasi soo bandhigay dhacdooyin murugo leh oo dad badan qalbigooda dhaqaajiyay kuna saabsan cunsuriyadda Soomaalida dhexdeeda ka jirta. wuxuu soo bandhigay dastuurka dhabta ah ee Soomaalidu ay ku dhaqanto. waxaan noolaadu qabiilku haba sheegaysanaan ha soo qaadin cadaalad laangaab ha iska jooga halkiisa haweenna daaba warkeeda haybtii tira leh ee halkaa degan unbaa talinaysa. waxaase cadaalada aad baad u mahadsan tahay. weydinkaa wariye Maxamed Cali Weji iyo ninkii gabadhiisa ka soo doontay maxaa kala qabsaday? inaan hadda aan dhalo Ingiriiska joogto hodan iyo caruurteeda talabaada anuu Yemen jooga nin bay iga soo doonay inanta haybaha fooq iska dhigaya. markaa wuxuu igu dhigay inantaadan doonaya waa ku inanta miyaad garanay inanta waa tumaal baan ismaba geydaan maxaa ku keenay laa ilaaha illa Muhammad rasuul ilaahay ka baq xaal baa ku qabtay ma diidi kartid 200 sanood baa ii diidaysay ma maalin xaal saysan baan aniga damba xaal ii qaban maaynan oo tasibaan kala tagnay. sidee ayuu ula dhaqmay ardaydii uu berbera macalinka ugu ahaa ee sabuuradda ugu qoray inuu yahay nin Tumaala? waan ku garanayna Tumaaliyo miyal baan ahaa waan dhiiday laakiin waxaan ilaahay ugu mahadnaq ardaydi galaaska saddexaad waa ardaydi galaaska qofka qoray garan maayo laakiin fure waaweyn bay ku qorantay way jadwalkii bay haystaan ee soo geli doonaan xiisada. sabuuradii baan masaxay ereyadii baan daayay waxaa leeyahay thanks for telling me who I am. waa mahadsantiin baari sheegista ay sheegteen ninkaan ahay and I am proud of it. kalaaskii labaadan galay anaa ku qoray, kii saddexaad baan ku qoray, كافراد مركان مريا هالماستر كي وحنا ذا طوام هاي عروتي كاسو تعاونيسا غير كل نبي كقوليسا ماشا ما سانكو لانكم مقولين إذا كان ساكا يقول بلابي وحنا مركان ولا كشكي معلمين تقارير كدم بيين أرنتن. haddaba siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhankiisa ka dareen celiyay maanta hadalka uu jeediyay rugcadaas xaafadeed Maxamed Xasan Cali Weji ayaa soo qaatay qisadii Allah u naxariistay Professor Siciid Samatar taasi oo ugu magac daray annaga iyo adduunka. qisadu waxay ka waramaysaa wiil yar oo Soomaali ah oo markab ku dhuuntay si uu dalka Ingiriiska ugu tahriibo. wiilkii yaraa ayaa gaadhay magaalada Liverpool, halkaas ayuu degay oo nolol waxbarasho iyo shaqo ka bilaabay. wiilkii gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska ayaa isfaham caashaq ku dhamaaday dhex maray. reerkoodii ayuu ka doonay xilliga oo ay ahayd bilowgii 60kii. waxaa aad u xooganaa cunsuriyadda midabta koorka ee dadka madowga ah. reerkii Ingiriiska waxay qaadan waayeen inay gabadhooda siiyaan nin madow oo haddana muslim ah, laakiin gabadhii ayaa go'aan ku gaartay inay caashaqeeda ka doorbiday cunsuriyadda reerkeeda. wiilkii iyo gabadhii sidii ayay isku guursadeen. muddo kadib ayaa waxaa magaalada Liverpool yimid wiil yar oo Soomaaliyeed oo isaguna markab ku soo dhex dhuuntay oo tahriiba. wiilkii ayaa haybsaday wax Soomaaliya, waxaa loo keenay ninkii Soomaaliga ahaa ee qabay haweeneyda u dhalatay dalka Ingiriiska. inankii ayay korsadeen, waxbarasho ayay geeyeen, nolol iyo mustaqbal ayay la garab istaageen. wiilkii waxbarashadii wuu dhammaystay, shaqo ayuuna helay.
reerka waxaa u joogay gabadha ahaan ay wiilka isla ekaayeen. wiilka iyo gabadhu si wanaagsan bay isku fahmeen, kadibna way iscaashaqeen. haasaawo in muddo ah qaatay kadib ayay isku afgarteen inay isguursadaan. gabadhii waxay bishaaradii kalgacalka iyo safgaradka guurka la wadaagtay hooyadeed. wiilkiina odaygii oo uu markaa u arkayay aabbihii oo kale ayuu la wadaagay. hooyadii ingiriiska ahayd farxad iyo raynrayn ayay meel ay istaagto weyday. marka haddiiba wiilkii ay soo korsadeen ay gabadheedii isjeclaadeen, laakiin aabbihii gabadha dhalay habeenno dhanba waa seexan waay. markastoo ay xaaskiisi weydiiso in muddo ay u qabtaan guurka labadooda, dib iigu dhig arrinkaa ayuu ugu jawaabaa. sabarkii ayaa haweenaydii ka dhammaaday. maalintii dambe ayay ku tidhi, maanta haddii aadan wakhti qaban aniga ayaa qabanaya. qabaqaabada arooskana waan bilaabayaa, adiga ayay ku taallaa, yeel ama diid. waa halka ay soomaalidu ka tiraahdo fad ama ha fadin waa lagu fadsiin. odaygii soomaaliga ahaa waxa uu ugu jawaabay haweenaydii ingiriiska u dhalatay ee xaaskiisa ahayd, waxaadan adigu fahmi karin ayaa jira oo arrinkan iga hortaagan. waxay ku tidhi, waa maxay? wuxuu ku yidhi, wiilkani waa tumaal, gabadhaydana ma geyo. waxay weydiisay, tumaal waa maxay? miyaysan soomaali ahayn? wuxuu ku yidhi, way yihiin. waxay kaloo weydiisay, miyayna muslim ahayn? wuxuu ku yidhi, way yihiin. oo haddaba maxay tahay mushkiladda ayay weydiisay. wuxuu ku yidhi, waa dad la hayb sooco, oo sababta lagu hayb soocayo waa maxay ayay weydiisay. mar haddii aad isku dad iyo isku diin tihiin. waxayna kula kaftantay quruxna kaa badan. ninkii oo wareersan oo wuxuu ku jawaabo aan haynin ayaa yidhi, ma garanayo, laakiin ninka gabadha la siin maayo ee halkaa warka ku jooji. haweenaydii ingiriiska u dhalatay waxay ku tidhi ninkeedii, walaalow adigoo madow ah oo muslim ah, miskiinna ah oo soo tahriibay, ayaan reerkaygii kaaga soo tegay oon isfahan nolol iyo jacayl caashaq dartii kuu soo raacay. walla wiil gabadhayda ay isku isir iyo weliba isku diin yihiin, qurux iyo dabeecadna ilaahay siiyey, loo diidi maayee. wad uunbaa kala celinayay, yuusan walaalow warkaa tegin. halkaa ayaa wiilkii iyo gabadhii la isugu meheriyey, guurkoodiina noqday mid khayr leh. waxaase brofesor siciid samatar ujeedka uu qisada u qoray ay ahayd sida aan innaga iyo adduunku isugu wareersannahay iyo sida aynu uga dhacsannahay halbeegka qiimaynta ee bini aadamka. faquuq iyo takoor ka xun ma jiro midka lagu hayo dadka la hayb sooco ee dalkeenna Soomaaliya. warbixintan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Axmed Darwiish. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.